annagu muslim khaaso daacadahaanu nahay dalalka afrika hadowlahadi kamid ahaanu nahay caalanka tawxiidkiiba ahaa dusha kaga qoran wadahadadu dihinta daacad baynoho baran dastuurkana dihinta islaamka lagu dejiyay eedaa inuu dalkayga ixtiraaf degdegaysi annaga madaxdaha cadaha dalka noo xukunta wasiirada halayaha xilka loo igmaday barlaamana dohornaha kursi noo fadhiya golaha guurtidu dadahal baynogu jiraan dastuur cadaha halayaha dalka lagu dhaqaa dimuqraadidaha cadayhi dadku muujiyeen eedaa inuu dalkayga ixtiraaf degdega ugu deeq dadkaygu dayrkii nabadahay daacaduhu dhisteen dastuurkiyo dahowladayhi qadarihinayaan wadagaaliyo dahaydabayhi wada dahayriyeen dalkaha dhismihiisa tartahan bay ugu jiraan dintana sidaha cadayhi ugu wada dhaqmaan daayartu qabiiliyo qorayhi iska wada duwen oo duruustiyo qahalinkayhi ku dadahalayaan eedaa inuu dalkayga ixtiraaf degdegaysi anigu dal shisheeye marna haba umaha duleen diyaarad marna haceenoho dollarka ma baxsheen dayaartiyo duhurustihi mandaca halmareen dalahalka carbeheed martihi maanta kuma noqdeen ee dalkaygan darajiyoho deequ heli lahaa haddii somalilan ixtiraafka la siihin lahaa haddii somalilan ixtiraafka la siihin lahaa anigu burtadaha la dalxiisi baan ku tegi lahaa odowgii shiikhaya dashaha danshahoon lahaa dabaqyadii hargeysa ayahaan ku dekahayn lahaa oo dooxadii togdheerayahan derma dhigan lahaa oo beerihiisanagayahan soo dhawahan lahaa dusha boorame dalxiisi baan ku tegi lahaa gacalka laascaanoodayaan soo salaami lahaa kalluunkaas ahahayracyaahal baan dalbahan lahaa badwahaynta barbarada bahasheedan baran lahaa dalkaygoo idil damashahadu baan ku mari lahaa eedaa inuu somalilan ixtiraafka sii